السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. isku soo noqon wanaagsan mar kale dhammaan walaalaha ku xiran janalka. intaan casharka bilaabin waxaan idin leeyahay hambalyo. waxaan gaarnay 70,000 oo subscribers ah. kanaalka keligeyga malihi waa isla leena. sababtoo aniga waxaan u sameeyay markaan sameynayay kanaalkan in ardada Soomaaliyeed ee daafaha caalamka ku nool inay ka faa'iideystaan ayaan ugu talagalay. marka insha Allah hala idin arko ismuujiya videoga hala like gareeyo wixii su'aalo aad qabtiin halka commentiga hala igu dhaafo insha Allah casharkan sii bilaabaya markaan sii gudgalaya waxaan ka hadli doonaa school. marka hore casharka waan akhrinaya kadib ayaan sharxi doonaa si fiican ula soco. School is a place. School is the place where we learn to read and write. School is the place where we learn to read and write. It is the most crucial place for a student. It is the most crucial place for a student, and it helps us to learn new things. Okay. The teachers are always helpful and teach us important things in life. The teachers are always helpful and teach us important things in life. The teachers are always helpful and teach us important things in life. We must always be regular to school, as missing classes can lead to problems during exams. We must always be regular to school, as missing classes can lead to problems during exams. Schools teach us how to be consistent, punctual. Schools teach us how to be consistent and punctual. Okay. marka sharaxaadan galaya ila soco. Okay. waxaan ka hadlaynaa marka mawduuceena waa school. School is the place. Schoolku waa meel, is the place, waa goob ama waa meel ama waa goob where we learn to read and write. halkaas oo we learn aan ku barano to read akhrinta sida wax loo akhriyo and write iyo sida wax loo qoro. Schoolku is the place waa goobta ama waa meesha ama waa goobta where halkaasoo we learn aan ku barano to read akhrinta sida wax loo akhriyo and write iyo sida wax loo qoro. marka schoolka waa meel waxaan ku baranaa meeshaas yani sida wax loo akhriyo iyo sida wax loo qoro ayaan ku baranaa. Okay. It is schoolka laga hadlaya marka waxay u taagan tahay marka schoolka schoolku waxa weeye it's the most crucial place waa goobta ugu muhiimsan for a student ee ardaygu. marka crucial waxa laga wadaa waa muhiim, waa important oo kale ay la mid tahay. Okay. Schoolku it is the most crucial place waa goobta ugu muhiimsan. Schoolku waa goobta ugu muhiimsan, crucial place goobta ugu muhiimsan, place waa goob ama waa meel. It's the most crucial place. Schoolku waxa weeye waa goobta ugu muhiimsan for a student ardaygu ama ardayga. Okay. And iyo sidoo kale schoolku it helps us wuxuu nagu caawinayaa schoolka to learn inaan barano new things. yani shay'aal cusub inaan barano ay schoolka nagu caawinayaa. yani schoolka waxaan ku baranaynaa sidoo kale shay'aal cusub, wax cusub baynu ku baranaynaa. Okay. And it helps us sidoo kale schoolka wuxuu nagu caawinayaa to learn inaan barano new things shay'aal cusub
inaan baranno يعني intaan ku baranayna shayaalka cusub iskuulka waad aragtay inta badan iskuulka wax badan baa lagu bartaa dhowr maado ayaa lagu qaataa oo kala duwan marka waxyaabo badan baa lagu bartaa marka new things shayaal badan oo kala duwan new things shayaal cusub wax cusub yani wax cusub baa lagu bartaa iskuulka and it helps us iskuulka wuxuu nagu caawinayaa sidoo kale to learn new things inaan baranno new things shayaal cusub okay next okay and the teachers macallimiintana the teachers macallimiinta are always helpful had iyo jeer macallimiintu waxa weeye helpful kuwa oo caawimaad leh waxtar leh helpful waa caawimaad leh waa waxtar leh useful helpful caawimaad leh waxtar leh the teachers macallimiinta are always had iyo jeerba helpful waa kuwa waxtar leh and teach us waxayna barayaan macallimiinta important things shayaal cusub ayna barayaan and teach us waxayna barayaan macallimiintu important things shayaal cusub ayna barayaan in life ee ku saabsan nolosha the teachers macallimiinta are always helpful had iyo jeer waxa weeye kuwa waxtar leh oo caawiya caawimaad leh and teach us waxayna barayaan macallimiinta important things shayaal cusub in life ee nolosha ku saabsan ayna barayaan we must always be regular to school waa inaan had iyo jeer aan joogtaynaa to school iskuulka macnaha regular waa joogteen waa in la joogteeyaa regular si joogta ah iskuulka loo yimaadaa macnaha regular waa joogteen we must always had iyo jeer anaga waxaan ugu waajibaa be regular inaan joogtayno to school iskuulka as missing classes marka fiili as missing classes yani iskuulka yani hadaad goyso oo aad u gembiso missing classes kalaasyada yani gembiskooda iskuulka waa aragteen ardada isku mid maaha qaar waxa weeye maalin walba waa joogaan waa xaadir qaarna waxa weeye isbuuciiba hal mar yimaadaan ama laba jeer yimaadaan oo gembiskooda badan marka as missing classes yani goynta iskuulka kalaaska inaad goyso fasalka inaad u gembiso missing classes inaad u goyso fasalka kalaaska can lead waxay ku horseedaysaa to problems dhibaatooyin ay ku horseedaysaa during exams xilliga lagu dhex jiro ama lagu guda jiro exams imtixaanaadka macnaha inaad iskuulka aad gembiso waxay ku horseetaa dhibaatooyin problems during exams inta imtixaanaadka lagu guda jiro ama lagu dhex jiro fiiri waad aragteen imtixaanaadka intay socdaan fiiri ardaygan haddii uu gembiyo maalin walba oo imtixaankii haddii la gaaro markaa waxay noqonaysaa inuu ardaygan wax uu keeni waayo sababtoo ah gembiskiisa badnaa daraasaadkii iyo casharadii lama socon qaar waa joogay qaar ma joogin exercise badan baa la diray home exercise badan baa la diray homework badan baa la diray wixii oo dhan bade ma joogin gemiskiisa badnaa marka arday maalin walba joogteeya kalaaska oo maalin walba xaadir ahaa oo aan xisad ka fakan jirin oo mar walba qalinka gacanta ku heshin jiro macalinka la socon jiray iyo arday maalin walba dee maalin imaanaya maalin gambinaya isku mid ma noqonayaan oo imtixaanku isku mid yani isku natiijo ma keenayaan mana keeni karaan isku natiijo ma noqon karaan sababtoo ah kan gemiskiisa badnaa kan waa maalin walba macalinka afkiisa wax walba afka macalinka soo baxa waa qori jiray waa la socda imtixaanaadka marka imtixaankiisa kaalinta koowaad buu galaya waa baasaya kaas marka as missing classes gembinta kalaasyada ama fasalka inaad u gembiso kan lead waxay ku horseedaysaa to problems dhibaatooyin during exams imtixaanaadka xilliga imtixaanaadka okay iskuulaadka teach us waxayna barayaan how to be consistent sida loo joogteeyo iskuulka consistent waxa waaye waa joogteen iyo sidoo kale and punctual iyo sida iskuulka loo yimaado waqti go'an loogu imaado marka punctual waxa weeye waa waqti go'an consistentna waxa weeye waa joogteen marka iskuulaadka teachers waxayna barayaan how to be consistent sida loo joogteeyo iskuulka iyo waliba how to be punctual iyo sida loo noqdo sida waqti go'an loo yimaado iskuulka punctual waa waqti go'an consistentna waa joogteen marka waxaan filayaa in casharka si fiican loo fahmay okay waa inoo casharka xiga iyo sida iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته